السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليقا شارب الشو كحيرا مرة بكسو دوادا channelka شارب الشو ومر والبو إيدين دهينيو أغنيهان أحمد شاربو haddii aad ku cusubtaana insha Allah subscribe-ka sii saari doontaa maanta waxaan ku soo gudbinaynaa insha Allah bidnillahi kariim shirkii muqdisho oo furmaya maalinka bariyo oo khamiis ah bishuna ay tahay September 10keeda ama bisha 9 2020ka shirkaasi oo la filayo dhammaan maamul goboleedyada oo dhan ay ka soo qayb galaan iyadoo waare qorqor iyo lafta gareen ay muqdisho hadda ku sugan yihiin oo kala maamulo saddexda maamul ee galmudug iyo hirshabeelle iyo koonfur galbeed sidoo kale madaxweyne farmaajo maanta waxaa looga yeeray xalane oo uu kula kulmay safiirka Mareykanka iyo saraakiil sare oo xagga ammaanka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya qaabilsan buu halkaas kula kulmay asagoo lagala hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay oo xoogga ay saareen Mareykanku doorashada ka dhacaysa Soomaaliya 2021 sidoo kale maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa lagala hadlay taliyihii xilka laga qaaday ee NISA ee ciidamada NISA oo si weyn sida wararka aan ku helayno loogu canaantay iyadoo hadda ka horna Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku eedeeyay dawladda maxamed cabdullaahi farmaajo in laamihii amniga iyo ururka al-shabaab ay isku milmeen oo aan la kala garanaynin cidda halkaasi ka shaqeysa xagga ammaanka iyo cidda xag jirka ah ee ku dhex jirtaba madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maantay si weyn ayuu shirkaasi oo ka dhacay xalane safaaradda Mareykanka loogu canaantay oo loo sheegay in degdeg go'aan looga soo saaro shirka bari muqdisho ka bilaabanaya ee maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ee asagu hogaaminayo sidoo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa lagu amray si degdeg ah inuu u soo magacaabo xukuumad ama ra'iisul wasaare sida hadba qofba u yaqaano hawsha muddada 3 bilood iyo barka haray si wada oo ka shaqeeya hanaan doorasho oo Soomaaliya oo la isla ogol yahay madaxweyne qorqor oo hadlayay wuxuu asaguna canaantay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo ku eedeeyay inay hadba leeyihiin hadba u egyihiin meesha ay markaasi joogaan hadba dabeecadii halkaas ay la kulmaan ay ku dhaqmaan ayagoo ka maqnaa buu yiri shirkii dhuusamareeb 3 magaalada muqdishona yimid ayagoo oo aan haba yaraatee wax cudurdaar aan ka bixin sababtay uga maqnaayeen shirkii dhuusamareeb 3 ee halkaas ku soo qabsamay waxaan sugaynaaba insha Allah waa shirkaasi birito iyo falaqayntiisa iyo annagoo xogta ugu dambaysa insha Allah u soo gudbin doona dhageystayaasha iyo warar lagu kalsoon yahay oo shirkaas hadda meesha marayo had iyo meelaha natiijooyinka ay ka gaaraan hogaamiyaasha halkaasi ku shiraya sidoo kale beesha caalamku waxay rabtaa shirka in la ballaariyo oo waxa laga yaabaa shirku inuu maalmo ama toddobaad uu qaato si ay uga soo qayb galaan xubno badan insha Allah waa inoo birito wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar walba la socda shaariba show